inaan maanta aan marti idinku noqdo city Somali oo arrimaha Soomaalida lagu gorfeeyo ama lagaga xaajoodo waxay tahay farxad inaan idinkala soo qayb galo maanta. Maxamedow, waa su-aal muhiima weeyaan. Waad la socotaayo xildhibaanka shaqadiisu way fara badan tahay. Caadiyan waxaan kacaa 6 aroortii. Markaas haddii uu maaragtay uu baarlamaanku uu fadhiyo, maxaa yeelay baarlamaanku ma wada fadhiyo mar walba. Bilaha uu fadhiyo waxa weeyaan maalinta Isniinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista. Waxaan joogaa baarlamaanka oo uu bilaabmayo 9 aroornimo. Waxay ku xiran tahay haddana ma garanaysaa baarlamaanka schedule baan leenahay oo waxaan leenahay house duties and so on. Haddana shaqadii constituency-guna way socotaa. Marka waxa weeyaan say u bilaabato 9 ilaa iyo marka qaarkood 11 habeenimo, 10 habeenimo oo maalin walba ah. Marka lagu daro maalmaha xitaa maaragtay Sabtida iyo Axadda. Marka waxaad oran kartaa maaragtay 24/7 basically. Waxa weeyaan aad bay maaragtay mashquulaan u nahay. Maalintii waxaa laga yaabaa intaasoo 100 oo email inay noo soo dhacaan, intaas oo taleefano dadka ma garanaysaay inay xafiiska iska yimaadaan oo loo baahan yahay in loo adeego. Marka waxa weeyaan waa shaqo aan kala go' lahayn, laakiin caadiyan aniga waxa weeyaan 6da ayay ii bilaabataa shaqadayda, 7da waddada kusii jiro iyo maaragtay inaan haddana 8dana marka qaarkoodna aan isdiyaariyo. Marka qaarkood waxaa jira meetingyo quickly 8 barka la galo. Marka waxa weeyaan waa ma joogsanayso, wayna fara badan tahay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan adeegidda aan u adeegayo constituency-ga xaafadda jooga, iyo arrimahooda oo markaasna aan geenayo baarlamaanka. Marka baarlamaankana waad la socotaa doodo fara badan baa ka dhacaya. Biilalka hadday noqon lahayd waqtiga la xisaabtanka dowladda ama aan ugu yeerno question period-ka oo wasiirada aan su-aalaha weydiino maalintaas ah. Maalinta Jimcaha baarlamaanku ma uu fadhiyo. Marka hadduu baarlamaanku uu furan yahay waxay noqonaysaa maalinta keliya marka aan joogo xaafadda constituency-ga waxay tahay marka maalinta Jimcaha ah. Marka dabcan weekendskana waan joognaayo. Waxaad haddana shirarkii meetingyadii kale ee community-ga. Marka waxa weeyaan waa dareemi karaysaa waa shaqo aanan joogsanayn, aanan dhammaanayn. Waad la socotaayo maaragtay dadku umaysan kala hadhin. Saad la socotidna xaafadan anigu waxaan deganaa ugu yaraan 22 sannadood intaanan kasoo guurin gobolka Manitoba. Taasna waxaa ii suurtagelisay inaan hoosta shaqada aan runtii aan kasoo bilaabo oo aan ahaa shaqaale siyaasadeed kasoo shaqeeyey xildhibaanadii gobolka iyo federaalka xaafadan u matalayay xisbiga New Democratic ah. Taasoo runtiina ii fududeysay inaan dad badanna aan isku barano oo qowmiyado kala gedisan ah, inay fududeeyeen inay markaas maaragtay doorashadana ay nagala soo qayb galaan. Dabcan qowmiyadda Soomaalida si fiican oo aan kala hadh lahayn oo maaragtay gobonimo iyo sharaf lena iyaguna maaragtay waa ay noogu soo hagar la-aan ayay noogu soo baxeen. Ta ugu muhiimsan runtii aan doonayn waxay ahayd community-ga marka ugu horeysa qowmiyad kastaba khaasatan Soomaalida laftigooda inay helaan xafiis aanan ka fogeyn oo agtooda ah oo ay u soo lugeyn karaan, baaskiilka u soo qaadan karaan, baska ay u soo raaci karaan, oo lug ay ku iman karaan, oo meelaha ay degan yihiin ka dhow. Ballantaasna waan fulinay. Markii ugu horeysaba xafiiskayaga waxaan ka furnay Western iyo Lawrence 1965 Western Road oo runtii meel dadku ay markiiba iman karayaan si aan adeega aan u sahalno. Waxyaabaha ugu waaweyn aan highlight garayn karay waxaa ka mid ah dhinaca qowmiyadda Soomaalida oo runtii ay muhiimad gaara aniga ii leedahay maadaama aan ahaa xildhibaankii ugu horeeyey ee Soomaaliyeed gobolka Ontario loo doorto. Inaan marka ugu horeyso Soomaalidu waxay u dabaaldegi jireen toddobaadka Soomaalida oo qaarkood ay qaban jireen inay calanka saaraan, qaarkood ay maaragtay ay kubadaha ay ciyaari jireen oo meelo badan ay iskaga iman jireen. Marka waxa aan community-gina markaan la xaajooday inay muhiimad gaar ay tahay in toddobaadka Somali Heritage Week horta laga dhigo toddobaad sharci ah oo parliamentary act ah oo gobolka Ontario looga dabaaldego. Taasna waa runtii waxay ii tahay mid farxad gaar ii leh oo aan ku faani karayo Bill 180 inaan maaragtay aan ku guuleysanay. Toddobaadkii ugu horeeyana oo weegan uu yahay in looga dabaaldego gobolka Ontario
iyo Manitoba oo laftigeeda uu yahay meeshii aan anigu asal ahaan markii aan waddankan usoo haajiray aan soo degay waxbarashadana aan ka bilaabay noloshayda Canadana ay ahayd meeshii buddiga muhiimka u ahayd halkaas maaragtay iyaguna inaan ka caawinay inay iyagu laftigooduna xildhibaanka Ozuma Agmagara iyaduna ay maaragtay ka ansixisay Somali Heritage Week halkaas marka labada gobol ee Ontario iyo Manitoba waxay noqdeen markii ugu horeysay labada gobol ee Somali Heritage Week looga dabaaldego taasna inaan maaragtay garwadeen aan ka ahaado waxay ka mid tahay biilasha ugu waaweyn aan ku faani karayo inaan maaragtay aan oran karo bulshada Soomaaliyeed waad la socotaayo waxa ay tahay Ontario gobolkii ugu horeeyay ama meeshii ugu horeysay ee waqooyiga Mareykanka iyo galbeedka Yuruba ee laga aqoonsado Somali Heritage oo si sharciyan ah oo legislation ah oo parliamentary act ah taasna waxay noo tahay markii ugu horeysay in aynu ku faano hidaheena iyo dhaqankeena ayna ka mid tahay taariikhda Canada iyo gobolkan Ontario marka Soomaaliduna marka reer Ontario aysan ahayn dad halkan marti ku ah oo halkan uu yahay waddankoodii oo ay maaragtay aan waqtigaas aan samayn karayno reflection aan samayn karayno recognition amaba aqoonsi in dadka qowmiyadeena ah shaqada muhiimka ah ee baaxadda leh ee gobolka Ontario ay ka hayaan in ay fulin karayaan nasiib darro waddanka Canada weli ma aqoonsan maxaa yeelay labada gobol marka laga reebo oo ahaayeen parliamentary act oo anigu influencega iyo xisbigayaga NDP-du ay arrintaa ay fulisay waxaan rajayn doonaa in Canada oo dhanna toddobaadkaas uu noqon doono mid looga dabaaldego dabcan marka maaragtay baarlamaanka Canada laga ansixiyo taasna shaqadeeda xisbigayagu NDP-du waxaan ugu jirnaa shaqo muhiim ah arrintaas inaan ka dhigno mid maaragtay meelaha kale ee aanan goboladu aysan fulin karaynin in Canada ay markaa ay suurtageliso oo markaa Somali Heritage-ku uu ka mid noqdo mid maaragtay looga dabaaldego Canada laftigeeda waxyaabaha kale ee muhiimka ah runtii aan ku faani karayo intii 3 sanadood ee lay doortay ee halkan aan fulin waxaa ka mid ah biilkii ugu weynaa ii horeeyay motionkii ahaa work integrated learning oo ahayd mid ma garanaysaaye maadaama hogaamiyahayga Andrew Horvath ay ii magacaawday garwadeen inaan ka noqdo arrimaha dhalinyarada oo aan ahaa markii ugu horeysay laga magacaabay youth engagement critic kadibna haddana laga bedelay oo laga magacaabay youth opportunities critic in arrimaha dhalinyarada dhibaatooyinka haystana inaan wax ka qaban waxaa ka mid ah saad la socotid dhalinyarada gobolkan Ontario ku nool ee jaamacadaha dhigta ama kollejyada dhigta markay jaamacadda dhigtaan ama ay ka qalin jebiyaan shaqooyinka ay doontaan waxaa la weydiiyaa waayo aragnimo shaqo ama work experience inta badan shaqooyinka waxay ku waayaan inaysan haysanin waayo aragnimo shaqo marka waxaan keenay biil arrintaas lagaga hortegayo oo dhalinyarada loogu diyaarinayo inay helaan waayo aragnimo shaqo inta iskuulka ay dhiganayaan ayna noqoto mid iyaga paid ay ku noqoto oo maaragtay mushahar lagu siiyo oo ah work integrated learning oo ah internships co-ops iyo placements oo markaas waayo aragnimadii loo baahnaa lagu siinayo inta iskuulka ay dhiganayaan kuwa markaan iskuulka dhiganaynina in iyagana la siiyo opportunities kuwa ka saaqiday iskuulada in ay lagu tababaro skill tradeska ama la baro in xirfad ay yeeshaan oo iyagana laga qayb geliyo dhalinyarada oo dhan kuwa shaqeeya iyo kuwaan shaqayninbaba taasna waxay noqonaysaa biil runtii aan ku guulaystay baarlamaankuna uu ansixiyey aan rajaynaynana in dowladdan hadda joogta inkastoo aysan budgetkii loogu qoondayn lahaa arrintaas aysan qabanin laakiin waxaan codsaday sanadka ugu horeeya 7,20,000 oo dhalinyaro ah in barnaamijkaas lagu bilaabo welina dowladdii waa ka sugaynaa laakiin waxay farxad aniga ii tahay inaan arrintaas aan ansixiyo oo ay tahay guul arrimaha ku salaysan arrimaha shaqageynta ardayda jaamacadaha dhigta iyo kuwa iskuullada aan ku jirin ama qalin jebiyey ama ka saaqiday maxaa yeelay dhalinyaradu waxay u baahan yihiin in investment la geliyo in maaragtay la caawiyo in markaa dowladdu ay shaqooyinkii way aragnimada looga baahnaa ay u diyaariso intay iskuulka ay dhiganayaan waad la socotaayo pandemic xun
ayaa nagu habsaday 2 sano ugu dambeeyey. 2 sanadoodna waxaan ku mashquulsanayn sidii dadka xaafadaydu ay u heli lahaayeen meelo testing loogu sameeyo covid testingka ah. xaafaddu markii hore ma aysan lahayn 2 cusbitaal baan lahayn. dowladdii hore liberaalka ahayd ee 15 sano gobolkan xukumaysay 2 cusbitaalba way naga qaadeen oo way burburiyeen. waxa ay abuureen hal cusbitaal oo xaafadeena aan ahayn laakiin xaafad nagu degan laga sameeyey cusbitaalka la yiraahdo Humber River Hospital. kaas marka waxa ay tahay marka in ay noqotay dayacaad ballaaran oo xaafadeena ay u timid. taana waxaan ku guuleystay in covid testingka la keeno cusbitaalkii hore laga guuray inuu noqdo meel lagu test gareeyo dadka markaa u baahan inay qaataan testingka covidka ah. taana aan oran karnaa 200 church inay ahayd meesha maaragtay muhiimadeeda testingka aanu maaragtay ku salaynay inkastoo ay nagu qaadatay 7 bilood oo ay noqotay September 28keedii meeshii markaa shaqadeedii ay bilaabatay. haddana waxaan kaloon dagaal dheer u galay sidii dadka waayeelka ah ee xaafadeena degan ee aanan meelo badan socodka u tegi karin inay qaataan talaalka covidka in loogu geeyo talaalka xaafadaha ay degan yihiin. taana waxay ahayd markii ugu horreysay ee xildhibaan gobolka ka tirsan uusan sugin dowladda oo markaa aanu partner la noqonay Humber River Hospital. aniga aan markaa aan shaqadeeda aan bilaabay in aan cusbitaalka iyo shaqaalahaygu aynu markaa aan u geyno dadkii waayeelka ahaa. taana waxay keentay marka inaan dowladdii aan ku qasabno in meelo badan oo xaafadda ah laga abuuro pop-upska ah meelo dadka ay iman karaan oo iskuuladii laga dhigay si ay dadka u qaataan talaalkooda. dad badan ayaa naga geeriyooday laakiin dad badan ayaan waxaan u suurtagelinay in xaafadooda loogu keeno talaalka. waxaa ka mid ah community hubka ku yaala Western iyo Lawrence in maaragtay iyadana ay noqotay meel constantly lagu sameeyo talaalka koowaad iyo ka labaadba dadku ay ka qaadan karayaan. cusbitaalka Westpark Healthcare Centerkuna isagana loo ogolaaday inay samayn karaan covid testingka iyaguna xaafadda ay samayn kareen. taana waxaan oran karnaa marka inaan dagaal dheer aan u galnay si xaafadda ayna noqonin mid la dayaco waqtiga culus ee aan ku jirno covid 19ka ama global pandemica. waad la socotaayo iskuullada maaragtay Catholic Boardka iyo Toronto District School Boardka labaduba waa iskuulo dowladdu ay fangareeyaan ama public schools ah. haddii iskuul uu public school ku yidhaahdo iskuulka aniga uma baahni waxay noqotaa inta badan inay iskuulkii ay iibiyaan oo ay ka iibiyaan developer si ay lacag ay u helaan. taasna waxay noqotay iskuul xaafadeena ku yaala la yidhahdo Nelson Boyle in iskuulka Catholic schoolka uu iskuulkii u baahday. waxay noqotay marka inaan dagaal dheer aan u galo in Catholic iskuulka la siiyo si markaas aan iskuulkii aanan laga iibinin dadkan aqalada dhisa. waxay noqotay marka dagaal dheer inaan u galay in marka lacagtii ay u baahnaayeen 14 milyan inaan u keeno oo marka waxaan ku farxi karayaa oo aniga guulayay tahay iskuulka la yiraahdo Nelson Boyle in uu hadda gacanta uu ku jiro Catholic schoolka caruurta dhigtana ay u tahay meel ay ka baranayaan maaragtay Catholic schoolkiina uu maamulayo. tan waxyaabaha dagaalka dheer ee la sugayay inay qoladan public schoolku ay iska iibsadaan iskuulada noocaas oo kale. saad la socotaan ilaa iyo 55 iskuul ayaa sida noocaas oo kale loo iibiyey. waad la socotaa iskuulka muhiimka noo ah ee York Memo oo isna arday badan oo public school ka dhigta ay ka qalin jabiyeen uuna yahay iskuul taariikh dheer u leh ciidankii dagaalka koowaad ka qayb galay oo ah Memorial School Community Hub on the also the falling soldiers kii dagaalka galay uu yahay iskuul lagu xusuusanayo. dab culus ayaa qabsaday iskuulkii waa tii uu burburay. waxaan ku guulaystay in iskuulkii dib loo dhiso sidii uu yahay. waan rajaynayno in iskuulkaasi noqon doono iskuul aan dib u dhisno dowladdana uu yahay gobolka iskuulka keliya ee hadda gobolkaba magaalada Toronto laga dhisayo. taana waxay tahay dagaalka aan u galay iyo halganka dheer in xaafadayda baahida ay u qabaan waxbarashada iskuuladaasna dib loo dhiso ardayduna ay dib ugu soo noqdaan. waxaan hadda sidoo kale aan u dagaalamaynaa iskuulka George Harvey oo isna aan ka fogeyn York Memo isagana inaan la isku darin ardayda oo isaguna noqdo mid gaara shaqada uu hayana uu sii hayo.
waad dareemi kartaa haddaan kuu soo koobo waxyaabaha aan oran karayo waan ku guulaystay ee dagaalka dheer aan ugu jiro waxyaabahaas ayaa ka mid inkastoo weli aan u dagaalamayno arrinta floodingka oo la socotaayo marka uu dhaco maaragtay flooding ama roob xooggan uu mahigaana uuna helo aqalada waxaa qabsada biyo fatahaad fara badan fatahaadaas waxay keentay marka dayacaad inay jirto taana waxa weeyaan dagaal dheer baan u galay sidii dadka loo siin lahaa relief sidii loo dayactiri lahaa infrastructure loo hagaajin lahaa taasna waxaan ku guulaysanay inaan resourcena u keeno aan hubinana dadkaasna la dayacayna wax laga qabto la socotaayo xaafadda meelo badan waxaa jira warshadihii xoolaha qalayay iyo dadki inay ku wada nool yihiin meelahaasna waxaa loo baahan yahay meelaha dadku ay degan yihiin in ganacsiga laga fogeeyo oon laysku dhex qasin taana waa dagaal dheer aan ku jirno oo aan doonayno inaan wax ka qabano marka way badan yihiin laakiin intaasaan kaaga soo koobaya dowladdii hore ee halkan xukumaysay ee 15 sannadood gobolkan iska baabi'isay dadkeenana badankooda codkooda ay iska qaadan jireen runtii waxa weeyaan waxyaabaha ugu weyn arrinta kaadhinka ah waxa weeyaan waa mid ay iyagu ay bilaabeen in dadka runtii danahooda maamulanaya ee madow ay ka mid yihiin qowmiyadeena in wadooyinka lagu istaajiyo anigan kula hadlaya 6 jeer ayaa 3 jeer oo ka mid ah uu ciidanka amniga nin ka mid ihii uu iska kay joojiyey uu urursanayo taasna waa dareemi kartaa weli lagama tirtirin oo lama baabi'in oo lama tirtirin arrintan weli way jirtaa waa regulatory dowladdii liberaalkuna ay diideen inay masaxaan qoladanina ay weli ay hayaan maadaama anagu aanu nahay official oppositionka ah waxa aanu doorashadii horena aanu ballan qaadnay haddii aan dowladda noqon inaan tirtirayno arrintaasna waanu naga go-an tahay maxaa yeelay waa khalad in caruurteena lagu taarget gareeyo midabkooda in ciidanka amnigu ay shaqo ka dhigtaan taasna ma aha in daatadooda meesha ay ku nool yihiin magacyadooda la urursado daatadaas laftigeedan in la destroy gareeyo oo la tirtiro taana waa midaan ilaa iyo hadda dagaalkeeda aan ku jirno dowladdana aan mar walbaba aan xusuusinayn inay sameeyaan ay weli diidan yihiin inay sameeyaan dowladdii hore ee Captain Wayne iyo Dalton McGuinty ay maamulayeenna ay iyagu ahaayeenbaba kuwii waxaan bilaabay oo doonayeenna maaragtay inay sii xoojiyaan arrintan maaragtay ku salaysan dadka madowga ah in noloshooda laga dhigo mid maaragtay baaba'day taana waxaa loo baahan yahay dadku inay ogaadaan cidda wax u qabanaysa iyo cidda codkooda ay khasaarinayso waa runtaayo intii aniga la doortay caruur badan oo xaafadeena degan ayaa runtii naftooda ku waayay dagaal dheer ayaan u galay sidii marka ugu horeysa accountability loo heli lahaa ciidanka amniga laftigiisa lala xisaabtami lahaa dowladda magaalada Toronto lala xisaabtami lahaa in xaafadda dadka ay degan yihiin danta yar ama laga tirada badan yahay horta in amnigooda la sugo amnigu uu mas'uul uu saaran yahay waxa uu saaran yahay ciidanka amnigu waxa mas'uuliyad looga saaray inay caruurteena badbaadiyaan waan garan karnaa dhowr jeer ciyaal xaafadooda jooga oo xaafadeeda ka tirsan ayaa aqalkooda loogu yimid oo lagu laayay taasna runtii waxyaabaha ugu waaweyn aan soo jeediyay waxay ahayd in xaafadda ay degan yihiin horta gate loo sameeyo gate laga soo galo oo ah qofka soo galaya horta la hubiyo waxa uu yahay markii aan la kulmay CEO-ga maamula Toronto Community Housing Corporation-ka waa uu aqbalay barnaamijkaasna waan sameynaynaa ayuu yiri waxay ahayd January sanadkan inay sameeyaan welina maaragtay mar dhowr wiigo ko aan la hadlayna waxay ugu yiraahdeen way naga go'an tahay arrintii inaan sameyno marka taasna muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeyaan horta cidda imanaysa xaafadda ee xaafado kale kasoo haajiraya ee hubka la soo qaadanaya ee weeraraya xaafadda dadka degan horta waa in amnigooda la sugaa marka ugu horeysa waxaan kaloo la sameeyay saa la socotay kaamerooyin xaafadayda ka tirsan anigu aan matalo waxaan xoogga saarnay in kaamerooyin iyo light nalal waaweyn oo qabanaya waxaa xitaa irbadda dhulka ku dhacda xitaa la arki karayana waan samaynay oo maaragtay taas oo dadka imanaya fogeynaysa laakiin haddana in geedka la dhammaystirana way naga go'an tahay oo taana in la sameeyo arrinta kale ku saabsan ah arrimaha maaragtay dhaqaalaha amaba in dhalinyarada yaryar iskuullada laga bilaabo in laga hortago dhibaatooyinka ka iman karaya ama waxyaabahan keenayana in la sameeyo macallimiin iyaga u eg curriculum ay u arki karaan in iyaga uu maaragtay
taariikhdooda iyo dadnimadooda iyo waxa ay yihiin ay reflection ay ka samayn karayaana in loo abuuro. taasna waata igu kaliftay inaan samayno Somali Heritage Week oo kor u qaada self esteemkooda ama maaragtay inay yihiin dad taariikh leh, dad maaragtay taariikhdeedu ay tahay mid hodan ah, qadiim ah, oo markaa ay ku faani karayaan. marka waana loo baahan yahay investment caruurtaasna in loo abuuro marka iskuulka uu xiran yahay, in shaqooyin summer jobs fara badanna la maalgeliyo. dowladdii hore ee liberaalka ahayd ee Kathleen Wynne iyo Dalton McGuinty ay xukumayeena xisaabtan iska daayay, waxa weeyaan waa dayacaad baaxad weyn oo dhib weyn ayay keeneen. kuwanina damba kama leh. marka waxay noqonaysaa marka doorashada soo socota inaan anagu marka aan dowladda noqono si aanu dhibaatooyinka aad taabatay aan gudagal loo sameeyo waxna laga qabto. arrinta kale loo baahan waxa weeyaan waalidiinta qowmiyadeennana waxaa loo baahan yahay inay ka warhayaan caruurtooda oo ay maaragtay wada shaqeyn waalidka counseling badanna la sameeyo. arrintaas jirta ee dhibaatooyinka qoyska ka dhex abuurmi karta aabbayaasha dayacaya ciyaalkoodana inay iyaguna maaragtay mas-uuliyad gaar ay qaataan oo ma sugi karayno oo keliya dowlad inay wax noo qabato, inaguna qaybteena inaan qabano. dabcan waad la socotaay waddankan asali ahaan waxaa lagu buddhigay maaragtay midabta koor xooggan. waan dareemi karaya markaan jaamacadda aniga aan galay Winnipeg, macallinkii ugu horreeyay wuxuu igu yidhi dadka ku eg halkan maaha meel ay wax ka bartaan ama ay xitaa ay ka qalin jibiyaan, maxaa waqtigaaga ha iska luminin. waad dareemi kartaa discouragementka noocaas oo kale ah. marka waxaa loo baahan yahay inay noqdaan resilient, inay noqdaan determination, inay maaragtay noqdaan dad akhlaaq leh, inay noqdaan dad maaragtay shaqadoodu ay badato, hadal yar hawl badan, iyo maaragtay inaad hore u socotid. dhibaatooyin badan way ka hor imanayaan, laakiin waxaa loo baahan inaad yeelatid dulqaad, inaad haddana aad fahantid habka ama sida lagu xaliyo dhibaatooyinka ka hor yimaada, oo aadan noqonin qof maaragtay caraysan, laakiin aad noqotid qof shaqaysta oo adigu maaragtay gacantaada maala oo shaqadaada u dhidida, waxna barta si aad maaragtay mustaqbalka aad wax u qabsatid. marka ha niyad jabina, waa lagu niyad jabinayaa. macallimiintaada laftigeedu waxay doonayaan inaadan guulaysanin, inaadan maaragtay aadan guul gaarin. dad badan oo maaragtay talooyin khaldan ku siinaya oo qowmiyadaada ka midana way jiri karaan, saaxiibada laftigeeda. marka waa inaad ogaataa inaad aniga laftigay qaar badan oo markaan jaamacadda dhiganayay oo qowmiyad yar oo baa deganayd, Soomaali yar baa deganayd Manitoba, laakiin hadda waad dareemi kartaayo masaajiday leeyihiin, dukaamo ayay leeyihiin. waad dareemi kartaa dad aad u fara badan baa hadda degan, laakiin 20 qof xitaa ma dhamayn markaan deganayn. qaarkood waxay igu yidhahdeen maxaad iskuul u dhiganaysaa maaragtay. marka waxa weeyaan adiga keliya dadka aad u malaynayso inay saaxiibada yihiin ayaa waxay ku oranayaan ha iskuul ha dhiganin, taxi baa laga shaqeeya, taxiga wad taxiga nala iibso, qaar baa igu yidhi soomaalida kale. marka waxa weeyaan waxaad u baahan tahay inaad maaragtay aadan niyad jabin, aad horey u socotid. waxbarasho ayaad u baahan tahay, aqoon baad u baahan tahay, wax kasta markaa way kuu furmi doonaan. marka ha niyad jabina. runtii muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeyaan dhalinyarada kulama talin inay iska ordaan. marka ugu horeyso waa inay qaataan waayo aragnimaday u baahan yihiin. waayo aragnimo qofkii haddii uusan hoos kasoo bilaabin, uusan iska wax u qabsa kusoo shaqaynin, uusan shaqadii uu xafiis siyaasadeed uusan kasoo shaqaynin, uusan ugu yaraan 10 sano 15 sano uusan soo gelin, dadkii aysan baranin, waxay noqonaysaa markaa inuu niyad jab uu kala kulmo oo simply ay yidhaahdaan waan ordaynaa, oo ay niyad jab baaxad leh ay ku dhacdo. taasna ay xitaa caafimaadkooda ay wax u dhinto. maxaa yeelay waan ordayaa keliya maaha, waad la socotaayo waa arrintan waa arrin weyn. waxay u baahan tahay maaragtay inaad fahantid waxa aad u ordaysid, waxa aad doonid, dadka aad matalaysid. marka ugu hore waxaan oran lahaa haddii aad doonaysid inaad orodid, ha ordin marka ugu horeysa. waa inaad horta aad fahantid xaafadaada, iskaa wax u qabsi aad ku shaqaysid, dadka xaafaddu ay ku bartaan, aad maaragtay iskaa wax u qabsi aad kusoo shaqaysid, waayo aragnimo aad ka qaadatid siyaasiyiinta kale ee markaa jooga, iyaga laftigooda ay ku noqdaan mentoring xaafadaada. dadka xaafadaadii ururada ka shaqeeya dadka u adeegaya aad iskaa wax u qabsi ugu soo shaqaysid. laakiin inaan la aqoon iskaa wax u qabsi weliga aan ku shaqayn, waan yarahay waan ordayaa, waxay noqonaysaa inay maaragtay niyad jab hadhow dhalinyarada ay ku keento. marka hore waxaan oran lahaa bal marka ugu horeysa siyaabo fara badan kaga qayb qaata
maaragtay bulshada aad la degan tihiin, xaafadaha aad degan tihiin, kadibna marka la arko hogaankaaga waayo aragnimadaada waxaa dhici karayso marka dad badan inay kugu dhiirigeliyaan oo ku yidhahdaan orod, laakiin waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inaad horta xisbiyada xaafadaada laftigooda aad xubin ka noqotid oo maaragtay xaafadaha waxaa loogu yeero riding associationadooda kale aad horta aad qayb ka noqotid waayo aragnimo aad ka qaadatid halka aad kasoo bilowdid, kadibna markaa aad shaqaalaha xafiisyadooda xitaa aad voluntary ama iska waxqabsi ugu shaqaysid waxyaabo badan baad markaa fahmaysaa, waxaad dareemaysaa waxa aad doonaysid inaad u orodid inaad horta aad fahantid waad dabcaysaayo dad badan ayaa halkan intaan aniga aanan u ordin u ordi jiray sanad walbaba intaasoo qof baa orda, laakiin badankoodu waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn waxa ay u ordayaan marka hore inay fahmaan, kadib waxay noqonaysaa markaa dad badan markay ku bartaan waxaa la dareemayaa markaa waxa aad tahay waxa aad qaban kartid, kadibna waxay noqonaysaa marka in dad badan ay ku yimaadaan. Laakiin haddii aadan ba high schoolkiiba aadan ka bixin oo aadan waayo aragnimo badan aan lahayn waxaa lagu arkayaa un keliya niyad jab qoomiyadaada inaad u keenaysid oo aadan ahayn qof maaragtay si serious ah u doonay in lagu doorto. Marka ugu horeysa ha lagu arko inaad tahay qof maaragtay star candidate ah oo maaragtay lagu arki karayo markaad soo istaagto inaad guuleysan kartid. taas ayaa markaa fududeynaysa markaa guushaada.